wali ma maqashay ama si aragtay dad qofkii ka dhinta aanan soo xabaalin ama aan qabriga geynin oo aanan soo aasin balse xanaaneeyo uguna labisa sidii qof nool oo kaleeto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada saaxiibayaal kanaalka Xangi Show. magacaygu waa Cabdiqani Xangi. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelka subscribe saaro, muuqaalkan haddii aad ka hesheen like saar, mahadsanid. Qowmiyad ku nool wadanka Indonesia oo lagu magacaabo Troja oo dega jasiiradda Sulawesi ee dalkaasi Indonesia ayaa waxay dhaqan iyo caado u leeyihiin inaysan aasin dadka ka dhinta ama ka geeriyooda. wadanka Indonesia oo ah wadan ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan caalamka, sida la qiyaasay muslimiinta dunida ku nool 13% waxay ku nool yihiin wadanka Indonesia, waana wadanka ugu muslimiinta badan caalamka. haddana saasoo ay tahay waxaa ku nool dad aan islaam ahayn oo ay ka mid tahay qowmiyadan maanta aan ka hadlayno oo lagu magacaabo Troja. qowmiyadan Troja ayaa waxay caado u leedahay arrintan la yaab kale, iyagoo qofka dhintay guryahooda ku haysta u qabeeya, dharka ka bedela, markay cunto cunayaanna cuntada agdhiga, iyagoo aaminsan in qofkani uusan geeriyoon ama uusan dhiman. dadka saboolka ah ee ka midka ah qowmiyadan ayaa iyaguna marka ay waqti dheer ku hayaan guriga oo ay awoodi kari waayaan inay ku sii hayaan guriga, waxa ay sameeyaan xaflad taasoo ay ugu qalaan xoolo fara badan, kadib waa ay gubaan meydka. hase yeeshee dadka hantiilayaasha ee ka midka ah qowmiyadan waxay dhigaan meelo loogu talagalay meydka, halkaasi oo ay ka soo saaraan sanadkiiba markaasna guriga lagu soo celiyo, dharka laga bedelo, loona xiro dhar qurux badan, laguna taago tiir oo lagu xiro. ayaa waxaa loogu yimaadaa booqasho iyo in la barakaysto. dhaqankan ayaa ah mid ka yaabiyey dunida oo dhan. muuqaalkan haddaad ka heshay like saar, haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo bir oo subscribe saaro channelka. mahadsanid.